miyadan iyo waxaan la sheegayo qoladan reer awdale waxyaabay ku noqonayaan la leeyahay dawladda Soomaaliland waxa lagu dhisay awdal meeshii lagu dhisay weeye cid walba intoo gacmaha la soo qabtay halkana lagu dhisay wixii ay sheegteen imisaad qolo walba waxa la yiri maxaad sheeganaysaan imisaad la idigu siiyay imisa beelood saddex beelood baanu nahay bay yiraahdeen reer awdal saddexdii beelood waa lagu siiyay waliba waa loo raxeeyo in ka badan baa la siiyay hadda doonaysaan runta doonaysaan in ka badan baa la siiyay shawalbana waxa dhagahayagu maqlaan waxaan doonaynaa saami qaybsi warninka aqalkiisii oo la joogo oo lagu xurmaynayo oo waxa uu doono uu helayo ninka wuxuu sheegtay la siiyay muxuu ka doonayaa dadka maaflagaadu wuxuu ka doonayaa in la caayo doonaya qalad iyo gaf weeyaan waxa aan kula soconaa dadka waxaan qaadanay dooranay intaasoo beelood baan nahay aan nidhi hal iska daayay laqwiga iyo waxa meel ka dhacaa la iska daayay saasaan u sheegayaa reer awdalla kolkii isaaqu istirsanayay uu beelaha tirsanayay inta ayuubka in laga bad sheegateen haydi la qarqadhayn doorashadana diyaar baanu inaan qabanno annaga ina naga goodaa doorashadu iyo adiga kaama goodo wixii aanu ku dooranay ma ada fulininba adigu hadda tahay xildhibaanka kolba meel ka hadlayo waxaan ku dooranay meesha guugeeyni ma ada fulina kursigaagu ma ilaalinaysa waxaan annagu ku hadlaynaa shirkan jiraayadeen maanta qabanay waxaan ka hadlaynaa waxa weeye doorashada aan ka hadlaynaana waxa weeye doorasho madaxweynaha dalku uu balanqa waqtigeedii inay dhacdana waan ugu tala galsanahay gobolkuna wuxuu leeyahay hoggaan buu leeyahay qaranku madaxweynuhu leeyahay gobolkuna madaxweyne ku-xigeenka hoggaanuhu isagoo madaxweyne qaranka haddana gobolku ka soo jeeda iyo lama gelayo doorasho suurtoobi mayso gobolku doorashada diyaar buu yahay waana gelaynaa goob kastana nabad baa lagaga codayn wixii gobolka ka maqan xildhibaano la kordhiyaa iskuwii hore waxa may tarin haddii 30 kale lagu darana wax tari maayo saamigu wuu badan yahay wasaaradaha jira saddexdii hay-adoodee qaranka fulintii waxaan ku dhaha sharci dejintii nin nafti ka baxday oo sakaraadkii ku jirana waxba toobad laga aqbali maaye waa ruuxii ilaahay hore idinka qoray waad ka qabtaan saami wax la yiraahday doorasho ku xirmaysaana ma jiro kuwii shalay hurday haday maanta tooseen shalay saami baa la doonay inuu muddo la haysto oo laga fadhiisanay waa la xisaabtamayo ninba intuu baahay uu sheeganay waadigi diiday waadi ka seexday maanta aan tooso saami doonaya maanta doorashada u jeedaa carqalad waxaasi wax lagu meereysta maaha waxba markaa ayaan lagu wareerin taayileeyii waanu qaadnay doorashada berri baan bixinaynaa codka annagu haddii aanu nahay odayaashii dhaqanka ree awdal haddii aanu nahay berri baanu codka ku ridanaa namana matalaan kuwaas